kabtanka xulka qaranka Soomaaliya Cabdisamed Cabdilaahi iyo ciyaartoyda kale ah Abil Gigil, Axmed Saciid, Xuseen Maxamed, Liibaan Cabdilaahi iyo Maxamuud Cali ayaa si wada jir ah u soo saaray warqad ku socota habka xulista ah ee ciyaartoyda, warbaahinta Soomaaliyeed, hay'adda FIFA iyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Xulista ciyaartoyda inta badan dadkeenu waa dhalinyaro aad u jecel kubadda cagta, laakiin waxay sidoo kale la soo darsaa halgano badan oo dalkeena wajahayo. dhalinyartan iyo dhammaan dadka kale ee Soomaaliyeed waxay mudan yihiin in la isu keeno dhammaan dhibaatooyinka oo ay noqdaan kuwo lagu faano oo aad loogu raaxaysto sportiska quruxda badan ee kubadda cagta ay ka tahay. Horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya waxaa ka buuxa awoodo badan marka lagu daro tayada caalamiga ah ee aan haysano. Waxaa jira jiil weyn. Tani waxay suurtagal ka dhigaysaa in la xusho xul qaran oo Soomaaliya oo tartami kara una qalma tartamada waaweyn. Tan ayaa farxad weyn u keeni lahayd dalkeena. Dhinaca warbaahinta Soomaaliyeed ayay warqadooda ku xuseen inay jiraan noocyo kala duwan oo warbaahinta ciyaaraha ah oo macluumaad marin habaabin ah siinaya dadkeena, iyagoo ka baqaya inay lumiyaan adeegooda iyo waxtarkooda, halka ay waajibkoodu yahay inay u adeegaan oo ay u soo sheegaan dadweynaha sida saxda ah. Waxaan ka codsanaynaa warbaahinta Soomaaliya inay fuliyaan barnaamijyadooda mas'uuliyadda saaran shacabka Soomaaliyeed iyo faafinta sawir daacad ah oo ujeeda leh. Fariinta muhiimka ah ayaa ah tan ay u direen hay'adda maamusha kubadda cagta adduunka ee FIFA. Haddii aan la helin waxqabadyadan muhiimka ah, kubadda cagtu ma gaari doonto muuqaalkeeda suuragalka ah. Madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Siciid Carab wuxuu noo ballan qaaday inuu na siin doono qorshe lagu horumarinayo xulalka. Ujeedada ugu weyn ee qorshuhu waxa uu ahaa in xulkeenu tartamada xulalka da'da 20 jirada iyo xulka da'da 17 jirada, iyadoo oo ay ragga xulka qaranka Soomaaliya u ciyaari lahayd dhammaan fasaxyada FIFA si ay kor ugu qaadaan kaalinta xulka Soomaaliya ee booska adduunka ay kaga jiraan. Intaas ka sokow, madaxweynuhu waxa uu yiri oo markii dambe si cad u shaaciyay in xiriirka Soomaaliya qori doono shaqaale tababar oo dhameystiran oo aqoon leh oo ay ku jiraan qorshe dhexe iyo mid fog oo xulalka qaranka midkoodna lama fulin. Ugu dambeyntii waxay fariin u direen xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, isla markaana waxa ay ku sheegeen inuu dayacay awoodda kubadda cagta tan iyo safarkii xulka ay la galeen. Si kooban ka hor kulankii FIFA Arab Cup ee 2021 ee isreebreebka ay la ciyaarayeen Cumaan, dhammaan ciyaartoydu waa ay joogeen oo laga filayo ogeysiis gaaban oo Djibouti oo ku saabsan xero tababar. Annaga helnay hal tababare oo aan karti lahayn, isla markaana lahaa tababaro liita. wax yar kadibna tababarihii waa la ceyriyay ama waa la eriyay. Wixii intaasi ka dambeeyay waxaa dhacay in ciyaartoydu ay ahaayeen xirfadlayaal iyagana u halgamay dalka. taas ka soko waxa ay muujisay indhaynta awoodda ay leeyihiin, laakiin awood darida xiriirka kubadda cagta ayaa qasaarooyin badan geliyay. Tani waa waayo-aragnimadeena ugu dambeysay, laakiin waa mid ka mid ah kuwo badan oo qarankeen isku soo wada duuba. warqadan oo ka koobneyd 3 bog ayaa waxa si wada jir ah u soo saaray Cabdisamed Cabdilaahi, kabtanka xulka Soomaaliya, iyo ciyaartoyda kale ah Abil Gigil, Axmed Saciid Axmed, Xuseen Maxamed, Liibaan Cabdilaahi iyo Maxamuud Cali.